بسم الله الرحمن الرحيم. قدوميها قراها الشعب يكون حجين نديسة قدوميها أقل كسرة رئيس وزارها يقولها وزير هذا قدوميها محكمة السرة قدوميها قراها الشعب دولة أهوالها الله جبوتي taliyaasha iyo sarreeyaasha ciidanka qalabka sida golaha shacabka iyo aqalka sare gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo hawlwadeelada gobolka Banaadir danjirayaasha iyo dhammaan martida sharafta leh oo halkan nagala soo qayb gashay kooxda fanaaniinta Heegan Bambeyda iyo bahda saxaafadda وهذا نقول سلامي صلاة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ما هتسكره وما أنت نوصل تقولي إن هل كان مناسبة عن ونأكسن عن كسوق يبقى له مدنيال يو مروين وها شرفية إن المركل هوتيني معه عنيقو جودنا إياه واجبات كي دستوري جاه فرتان كالفريقة لحد برلمان كفدرال الصومالي سداءات لو سعتان ذلك الصومالي ومريا مرحلة ذلك أو أباهن إن دمانتين أن يستاجنه جماعة نسقفسنه سيان وجودمنه مرحلة ذلك وذلك كانوا مريا كجور ثاني أنتي هذه دورتين وحنكشقين يي في صوماليا أو يالن لهاي دولة كشقيسة تناها ضدك يدلك وحن صومرني مرحلة بدن أو كالدول وحن لا دجالني أما ولي لا دجال منا كوحها أرجع حسده أو سيان ضلك أو قصفينه أما وحورينه وحن جارني جولوا وين أو لقونا لون كرو هسيا شيء وحبضنا ونوه هرسيه ولي وحن دال حوق له أن وجرنا سيدي أن أسوع لهين شرفتي يهيبدي أي مدة صوماليات دون ككلهين وحن كشقيني إن عن حرير وناكسن أو استحترام يستحقلين كل سنة الله يلنه ودمدا دونك إيوه كوا من دقده قولك وحنا دين حقيقينا إن مرنا أنا كدار دونين إن شرفكي يسمع عدي ومدى الصوماليات إلى هاي عندي مسوع له أنت أن تلاذ هينه وحنا روا إن أنا دين عديه إن صوماليا يستكتي دمنا يسن نقول دونين إن شاء الله مدنيالي مروين هيانكا دبو سونولينتا قرنمada Soomaaliyeed ay soo bilowday maaha mid ummadda Soomaaliyeed iyo madaxdeeda toonna ay dib uga noqon karaan ama uga noqonayaan waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa dawlad iyo shacabka inay u midoobaan siday u tirtiri lahaayeen ama uga adkaan lahaayeen ama ula dagaalan lahaayeen argagixisada caadaysatay daadinta dhiiga shacabka Soomaaliyeed oo islaamka ah iyo cid kasta oo ka soo horjeeda horumarka iyo dib u soo nooleynta qaranka Soomaaliyeed waxaan sidaan horey ku ballan qaadayba naga go'an sidii loo gaari lahaa qarannimo Soomaaliyeed oo waarta saldhig adagna leh ummadda Soomaaliyeedna ay u siman tahay waxaan sidaas si leeg shacabka Soomaaliyeed aan ugu baaqayaa inay si dhow ula shaqeeyaan dawladooda kuna garab istaagaan sidii loo xaqiijin lahaa hadafka guud oo ah in la helo qarannimo iyo midnimo Soomaalinimo ku dhisan ma jiro wax Soomaalinimo ka yar oo nadeeqi kara waxa huwaala in si aan hadafkeena u gaarno shaqo badan ay noo taalo in kasta oo dalkeenu ku jiro
marxalada adag ay ka mid tahay nabadgelyada, dhaqaale ahaan, siyaasad iyo bulsho ahaanba. haddaan si wada jira aan isu kaashanno oo aan awooddeena isugu geenno, waxaan aaminsanahay intaas oo idil inaan ka gudbi karno, annagoo ka aanbaqaadeenna sidii aan si buuxda uga hanan lahayn qarannimadeenna. waxaan dejinnay qorshayaal ciidan oo loogu talagalay sidii loogu sugi lahaa ammaanka dalka, si rasmi ahna loogu ciribtiri lahaa argagixisada iyo cid kasta oo khatar ku ah ammaanka dalka iyo ummadda Soomaaliyeed. waxaanse idinkugu baaqayaa mar kale inaan garab istaagtaan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo naftooda u huraya maalin iyo habeenba, una taagan sidii ay u soo celin lahaayeen sharaftii iyo xurmadii iyo karaamadii ay lahayd ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba. waxaan sidoo kale aan dejinnay qorshe horumarin qaran oo tilmaan cad leh sidii uu dalkan u gaari lahaa horumar iyo isku filnaansho mustaqbalka hadduu Ilaahay yidhaahdo. mudanayaal iyo marwooyin, si loo gaaro qarimo dhammaystiran, waxaa maamulkaygu xoogga saaray sidii ummadda Soomaaliyeed horumar u gaari lahayd, siyaasad loo dhan yahay iyo dejin xeer qaybsashada khayraadka dabiiciga ah. waxaan dhaqan gelinay nidaamka diiwaangelinta ku-meelgaarka ah ee xisbiyada siyaasadda. dhanka kale, waxay dowladdu dhammaystirtay xulashooyinka qodobada dastuuriga ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ka wada xaajoon karaan, ay ka wada shaqayn karaan, sida maqaamka magaalo madaxda Muqdisho ku dhex yeelato hannaanka federaalka, qaab dhismeedka dowladda, astaynta awoodaha dowladda, hannaanka dowladeed ee federaalka Soomaaliya, hannaanka cadaaladda iyo asluubta federaalka, iyo weliba hannaanka federaaleynta maaliyadda. waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan ku gaari lahayn hannaan dimuqraadi ah oo ku dhisan nidaam federaala, kaasoo soo celin kara qaranimada Soomaaliyeed oo loo dhan yahay, loona siman yahay. waxaad sidaas la socotaan oo idin sugaya dhammaystirka hindis-sharciyeedyada doorashooyinka iyo dib u eegista sharciga xisbiyada siyaasadeed oo muhiim u ah geedi socodka dimuqraadiyeenta dalka. waxaan idinka codsanayaa inaad ansixisaan hindisiyaashaas si degdeg ah, si dalka uu u gaaro qof iyo cod hadduu Ilaahay yidhaahdo. mudanayaal iyo marwooyin, sidii aan ku xusay khudbadaydii tan ka horreysay ee kalfadhigii hore, muddadii koobnayd ee maamulkaygu jiray, waxaan saxiixay 4 sharci oo uu ka mid yahay sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa oo sidaad ogtihiin gundhig u ah aasaasidda qarnimada Soomaaliyeed oo taaba gasha. shuruucdaas aad ansixiseen ama aad ansixisay iyo kuwa kaleba oo idin hor yaalla, waxaa muhiim ah xildhibaanada sharafta leh inay si degdeg ah iyagana u ansixiyaan. sharci baa dal lagu dhisaa, laguna dhaqaa. sidaas awgeed waxaan mar kale ku soo celinayaa codsigaygii ahaa inaad dardargelisaan hirgelinta sharciyada idin hor yaalla iyo weliba kuwa kale oo idin hor imaan doona hadduu Ilaahay yidhaahdo. kobcinta dhaqaalaha dalka waxay sidoo kale ka mid tahay tiirarka ugu muhiimsan ee dhismaha qarannimada. sidaas awgeed waxaa maamulkaygu ahmiyad gaara siiyey sidii dib loogu soo yegleeli lahaa habdhaqan dhaqaale oo na gaarsiin kara inaan qarannimadeennii dib u hananno. annagoo arrintaas ka duulayna, waxaan dadaal dheeraada ku bixinnay sidii deymanka nologu cafin lahaa iyo sidii aan kor ugu qaadi lahayn dakhliga gudaha. waxaan alle mahadiisa ah aan ku guulaysannay inaan si hufan uga soo baxno dhammaan shuruudihii nalagu xiray ama nalaga rabay inaan gaarno yoolkii
aan kula heshiinay hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ka si nalooga cafiyo deymahaas. shuruudahaas noo haray oo nalaga rabo inaan si degdeg ku dhammaystirno waxaan rabnaa bishaan gudaheeda in la dhammaystiro hadduu eebba yidhaahdo. madashii iskaashiga ee Soomaaliya iyo beesha caalamka SPF waxaan bogaadinayaa hawshii ay qabteen iyo waxay soo saareen. waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan hirgelino. mudanayaal iyo marwooyin, sidoo kale waxaa kobci dhaqaalihii gudaha kadib dib u habeyn aan ku sameynay oo aan habkii ururinta dakhliga gudaha aan ku guulaysanay. waxa kale oo intaas dheer oo aan gaarnay arrintaas noo sahashay si joogto ah inaan u bixinno bacdama aan aruurinay dakhli maxaan ku raahdaa nagu filan inaan mushaharaadkii shaqaalaha aan si joogto ah u bixinnay muddooyinkii aan joognay taada. mudanayaal iyo marwooyin, dhinaca dib u heshiisiinta waxaa naga go'an inaan ummadda Soomaaliyeed aan dib u walaalayno annagoo u marayna dhaqankeennii wanaagsanaa ee iscafinta iyo isu tanaasulka. qaranimo waxaan ku gaari karnaa oo keliya inaan iscafinno, alle u noqonno, dalkeenna dhismihiisa aan ka wada qayb galno oo si wada jira aan uga qayb galno. haddii ay jiraan kuwa aaminsan in dadka Soomaaliyeed ay qasab ku hoggaamin karaan, waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed way ka gudbeen xilligii jahwareerka, way ka gudbeen xilligii lagu oorkacsan jiray. mudanayaal iyo marwooyin, sidaad la socotaan waxaa alla mahadiisa oo dhowaan noo soo gabagaboobay shirkii dib u heshiisiinta ee Galmudug. natiijada aan ka gaarnay dib u heshiisiintaasna waxay noo fududaysay inaan hadda u gudubno sidii aan u caawin lahayn, aan u wada dhisi lahayn maamul loo dhan yahay oo ummaddoo dhan ay ku qanacsan tahay. waxaa naga go'an inaan dhegaysanno cid kasta oo wax tabanaysa. waxaa naga go'an inaan garowsanno cid kasta oo garowshiyo leh ama mudan. waxaa naga go'an inaan raaligelinno cid kasta oo raaligelin mudan. waxaa naga go'an dib u heshiisiin waarta oo ka hirgasha dhammaan geyiga Soomaaliyeed. laakiin marna ma ogolaan karno ama ma ogolaan doonno hadduu Ilaahay yidhaahdo inaan dib u noqonno. marna ma ogolaanayno inaan aqbalno wax qarannimada ka yar. marna ma ogolaanayno inaan aqbalno cid kasta oo hor istaagta dib u yegleelidda qarannimada Soomaaliyeed. mudanayaal iyo marwooyin, nidaamka federaalka waa nidaam ay ummadda Soomaaliyeed u dooratay ama ay ku heshiisay inuu noqdo hab maamulka dowladdeena. ilaa ay ummadda Soomaaliyeed iyagu go'aansato inay wax ka beddesho nidaamkaasi, waxa weeye uu jiri mana jirto dowlad ama koox gaar ah oo wax ka beddeli karta. waxaanse nasiib darro ah in dad qaarkiis ay si khaldan u fahmeen ama u macneeyeen nidaamka federaalka. nidaamka federaalku wuxuu si cad u qeexayaa awood qaybsiga dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ah, laakiin ma siinayso madax bannaani gaar ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah. waxaan idiin xasuusinayaa in mas'uuliyadda ilaalinta qarannimada dalka iyo madax bannaanidiisuba ay saaran tahay dowladda federaalka ah. waxaan mar kale rabaa inaan idin xusuusiyo in siyaasadeenna arrimaha dibadda saldhiggeedu yahay in Soomaaliya ay xiriir wanaagsan la yeelato waddamada deriska iyo kuwa caalamka labadaba. xiriir iskaashi ku qotoma ilaalinta danaha qaranka Soomaaliyeed. waxaan shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in aanan marna ka gorgortami karin ilaalinta midnimada, madax bannaanida iyo ilaalinta xuduudaheenna dhulka, badda iyo cirkaba. xiriirka aan la leenahay waddamada deriska ah waa mid aan doonayno inuu u dhismo ama u noqdo mid iskaashi iyo mid siyaasadeed
iyo mid amni kaasoo ku dhisan is-ixtiraam iyo wax wada qabsi siman oo dhinacyadoo dhan ah. waxaa intaas dheer oo aan kusoo gabagabeynayaa annagoo arrintaasi ka duulayna waxay dowladda Soomaaliyeed kaalin muhiim ah ay uga jirtaa xoojinta xiriirka iskaashiga ee wadamada geeska Afrika gaar ahaan dhinacyada nabadgelyada dhaqaalaha siyaasadda iyo bulshada. waxaan mar walba ku taaminaynaa sidii uu geeska Afrika u gaari lahaa xasilooni buuxda oo dhinac walba ah. mudanayaal marwooyin waxaan ku soo gabagabeynayaa kalfadhigan ee baarlamaanka waa noo furan yahay maanta oo bisha tahay Oktoobar 9 2019. waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.